السلام الله عليكم أصحابي isku soo noqosho wanaagsan halka aad fiidiyogan ka daawanaysin waa Dr. Xaashin Network maanta fiidiyowgan wuxuu ku saabsan yahay fursadaha shaqooyinka helitaanka shaqooyinka iyo maxaa keena caqabadaha la xiriira in job application-kaagii ama application-kii codsigii shaqada shirkadaha aad u diratay lagaaga soo jawaabi waayo iyadoo weli shaqada fursadeeda ay jirto shirkadii weli dad hire garaynayso qualificationkiina aad leedahay soo buuxida hadday tahay khibrad iyo hadday tahay education background iyo wax kastoo job criteriagaas ku qornaana waad soo buuxday lagumana soo jawaabayo shaqooyinkii ma helaydid marka barnaamijka su-aalahaasaan isla fiirinaynaa maanta si guud maxaa keena caqabada in fursad shaqoo jirta adigu shaqadii weydo aan ku bilownay inta badan kambaniyada waaweyn oo maantay shaqooyinka laga xaraysto wadankay rabaan ha joogaan noocay rabaan ha ahaadaan hadday IT tahay iyo hadday wax kala tahay iyo hadday caafimaad tahay iyo kambaniyadaas markay shaqooyinka soo boosti gareeyaan kambaniga adigu aad xaraysanayso kambanigu adiga kuma yaqaanaan weligood kuma arag xirfadaha aad leedahay ma yaqaanaan the only way ku arkayaan waa resume-gaaga macnaha ama CV-ga resume-gu waa muraayada kambanigu uu kaa dhex arkayo macnaha marka haddii resume-gaagu aysan hagaagsanayn oo si professional u qornayn oo efforts uusan ka muuqan iyo dadaal in la geliyey oo xirfadihii amase wixii aad ka soo shaqayda aysan organize wax ahayn oo luuqadda ay ku qoran tahay aysan luuqad maaragtay professional aysan ahayn kambanigaas wuu tuurayaa dadka kaleu fiirinaya isagoo laga yaabo inaad dadkaas adigu ka qualify garaysan tahay oo aad maaragtay ka credentials badan tahay haddana lagaa tegaya resume-gaa darteeda lagaaga tegaya sababtoo kambanigu kumaba aragba marka koowaad waa warqadaad soo qoratay oo wax ku qorqoran yihiin waxa ay arkeen marka warqadaasay ku qiimeynayaan qodobka labaad hadda kambaniyada amase shaqo kastoo maanta la raadiyo erayo waxaa jira keyword ah erayo keyword ah haddii resume-gaaga laga waayo erayada keywordkan markii hore qof human being ahaa inta badan kambaniyada ama HR la yiraahdaa review garay jiray hadda AI review garanaysa kambaniyada waaweyn oo dhan AI review garanaysa marka waxaa loo yaqaanaa application tracking system wax la yiraahdaa la gelinaya marka intaanba qof bini aadan u arkin systemka ku tuuraya computerka meel dhexe kaa soo celinaya marka adigu maanta oo dhan xare maba gaaraydidba qof xataa credentialskaaga si fiican loo akhri maayo sababtoo systemkaas oo AI-ga waxaa lagu programiyey keywords erayo muhiim u ah oo maaragta xirfadaada muhiim ah erayadaas oo ku programsan erayadaas hadduu ka waayo shahaadadaadana waxaa waaye ama CV-gaaga hadduu ka dhex waayo erayadaasna wuu ku tuuraya marka dadka kaluu aadaa sidaasaad maaragta waxaa keenayda waliba waxyaalaha lagu ogaado waxaa ka mid a kambaniga waa xaraysatay dad badana xaraysteen asbuuc kadib ama 2 asbuuc kadib interview laguma wicin waxba kambanigii shaqo kuma siin kambanigiina haddaa websitekiisii gasho they are still hiring weli waa hire garaynayaan weli shaqaalihii waa raadinayaan macnaheeda sidaasaad ku ogaahaydaa maaragta qualificationkan waa soo buuxiday tusaale ahaan general labor ay ahayd shaqooyinka qualificationka loo baahnaaba qofkan inuu experience leeyahay 1 year or 2 year wax ka soo shaqeeyo un experience waa leedahay amase waxayba ahayd shaqo professional oo waxaa lagaaga baahnaa shahaada lagaaga baahnaa noocaas iyo waxaas lagaaga baahnaa wixiina waa kuugu jireen resume-ga wixii dhan waa kuugu jireen waad ku diyaarsanaayeen laakiin haddana kambanigu kuma soo casumin marka sidaasaad ku ogaanaysaa in applicationka sidaad u xaraysatay CV-gaaga inuusan si professional u qornayn oo ama computer ku soo celinayo ama uu sidiisa kalaba maaragta uu u yahay unprofessional u yahay tusaale ahaan degree iyo jaamacado inaad ka soo baxdaa sheegaysaa resume-gaaga qaladaad badan ee ku jira grammarka iyo luqadda ay ku qoran tahay ma hagaagsana sentencekeedu waa fragmented way go-an tahay haddii ilaahay kuu roon yahay sida resume oo professional looga baahnaayo maaragtay introduction yaro summary qofku waxa uu qabto iyo ku saabsan iyo maaragtay experiencegii iyo shaqooyinkii ugu dambeeyey iyo education iyo additional certificate iyo qaabka standardka oo resume-gu ay u qoran tahay hadduusan u qornayn adiguna maaragtay inaan intaasoo jaamacadood ka soo baxday aad sheeganayso marka waxaa meeshaas discrepancy ka jira way iskhilaafsanaanayaan meeshaas marka waxay leeyihiin yani aqoontan iyo waxaan meesha ku qoran qof kale oo intaasoo credentials iyo background education qaba haddana warqadiisu ay sidaan tahay macnaha maxaa jira ama effort isusa gelin oo qof dadaal badan uusan ahayn oo waxaan daacad u ah ama aqoontan uu sheega ayaa wax ka dhiman yihiin isleeyihin marka sidoo kale keywords kastaan wax yar dib ugu soo laabto tusaale ahaan maanta shaqo kasta hadday tahay caafimaad hadday tahay ganacsi iyo economics iyo accountant iyo hadday tahay iyo computers iyo IT iyo engineering nooc kastoo ay tahay xirfadaha qofka laga raadayo waxaa ka mid a communication inuu qof communication ku fiican yahay
kambanigu adeeg kaligaa ku hayr garay maayan, hal meel lagu fariisin maayo, dadaad la shaqaynaysaa, qaab loola communicate gareeyaa jira, dadkaas maaragtay co-workers ama colleague noqoydin, kuwa kaa sarreeyo oo ama maaragtay supervisorka kuu noqonaya, team leader kuu noqonaya, manager kuu noqonaya, qaab loola communicate gareeyaa jirta si macnaha guud oo kambaniga loola communicate gareeyaa. Marka communicationkaagu hadduusan fiicnayn maaragtay keywordka laga waayo inaad qof collaborative ahoo dadka la shaqey kara aad tahay, macnaha xoogaa gadaala loo dhigaa resume-gaas. inaad ku fiicantahay in kalena iyagu ma oga, ilaa weli kuma aysan arag, laakiin waxa warqadaasaa la fiirinaya. marka haddaan dib maaragta usoo samareys gareen, number one waxaa lagaa fiirinayaa waa CV-ga ama resume-ga. haddii resume-gaaga aadan waqti aadan gelin oo uusan hagaagsanayn, hadda waxa waaye ii sheeg dada xataa jira professional writers oo resume-ga dadka macnaha u edit garee. resume-gaagu adigu waxaaga waa kuu qoran yihiin oo cidina kuma samay karto, adaaba waa waxaad kasoo shaqeyday iyo credentialskaaga, laakiin waxay u baahan tahay in la order gareeyo, la organize gareeyo oo maaragta professional laga dhigo. qoraalka in lagula edit gareeyo laysugu kaa aadiyo hadday xataa aad u baahan tahay, dadaa jira professionalis oo waxaas professionalku ahoo kuwa shaqaystaa jira, xataa online-ka laga helo kuu edit gareehayo kuu hagaajinaya. marka mid waa midaas, marka waa resume-ga. midda labaad, kasoo qaad resume-gaagii waa gudubtay, interview lagugu soo casumay, waa lagu soo casumay, waa timid, waa lagu wareystay. maxaa keeni kara sababa in lagu diido? iyadoo horta haddii lagu soo casumo interview lagu ballamiyey oo shaqadii lagu yiri maalin heblo imow, macnaheeda waxa waaye 50% shaqadaas janiskaaga waa dhaafa inaad hesho 50%, sababtoo ah already waa lagu casumay, meaning waxa kuugu qoran resume-gaaga iyo waa lagu qancay, kambaniga waa kugu qancay. marka waxaa la rabaa in lagu arko macnaha physical appearance-gaaga iyo adiga iyo maaragta qofka oo shaqada doonaya qofka uu yahay, iyo haddii ilay kuu ron yahay sida u communicate garaynayo, iyo inuu kambanigan waqti soo geliyo, soo ogaaday. waxyaalahaasaa la fiirinaya adiga. marka caadiya la arkaya qofkan qofka uu yahay, markan waa lagugu soo casumay. marka janiskaaga inaad shaqada heshaa aad u sareeyaba haddii interviewga lagaa qaado, ma fahanta? marka meeshaas marka waxyaalaha la isku diidi kara maxaa kamid a oo interviewgaas oo la fiirinayo? ciduna fiiri maydo inaad dheer tahay, inaad gaaban tahay, inaad xoog weyn tahay, iyo inaad caata tahay, iyo inaad madow tahay, iyo inaad cad tahay, iyo inaad baroon tahay. kambanigan shaqaalu raadsanaya xirfadahaaga iyo sida u communicate garaynayo fiirinaya, adiga wax kale macnaha ma uu fiirinayo. marka waxyaalaha number one qofkaas uu fiirinayo waxaa kamid a on time ku timid, oo maadaama interview lagu ballamiyey waqtigii loogu talagalay ma timid oo daqiiqada yar ka hor iyo inta kasoo hormartay meeshii oo qofkii computerka u fadhiya hebel aan ahay oo interview u ballansanaha ma tiradoo diyaara, qofkii kaa qaadi lahaa ma ku yimid. labo, dokumentiyadeedii iyo waxaagii oo resume-gu ay ku jirto folder iyo haddii loo baahdo iyo maaragtay ma sidata oo qof maaragtay folderkiisu u diyaarsan yahay wixiisa sita ma tahay. saddex, su-aalaha markii lagu weydiinayo qof kambanigan soo research gareey, sababtoo way ogyihiin kambanigan shaqada ayagu ay bixiyaan kambaniyo kaloo bixiya inay jiraan, way ogyihiin. marka su-aalaha inta badan la isweydiiye waxaa kamid a maxaad nagu dooratay shaqadan, maxaad ku dooratay kambanigan in general la iska kaaleeyahay, shaqadan maxaad ku dooratay, kambanigan maxaad ku dooratay. marka inaad xoogaa maaragtay kambanigii wax ka ogtahood soo fiirfiiriday iyo shaqada ay qabtaan iyo shaqaalahooda iyo maaragtay environmentigu meeshay ku yaalaan, xataa haddaad rabto ay ahaa kartaa dadka u shaqeeya waxay kambanigan ka qoreen aad soo akhridaa laga yaabaa. macnaha waa inaad u diyaarsanto haddii su-aalahaas lagaa weydiiye aad ka jawaabi kartaa. just maahan oo shaqaan raadaya linkii koowaad oo markaan google-ka gala ii soo baxaad ahaydeen, macnaha taas jawaabta ay raadinayaan maaha. sheeko yaran maaragtay. marka waa labadaas daan idiin soo kooba, waa inaad labadaas iska dhistaa. kambanigaad resume-ga haddii lagu soo ballamiyo la aqbalo resume-gii, waa inaad kambaniga xoogaa research waqti gelidaa, si fiican usoo labisataa, maaragta adigoo maaragta faraxsan oo cabsi aysa kaa muuqan oo confidence ay kaa muuqato inaad soo fariisato. waxaan haddii maaragta laguu qoro waa hele, haddii aan laguu qorin heli mayd. marka waa inaad adoo kalsooni ay kaa muuqato soo fariisataa, su-aalaha lagu weydiiyaha ay ka jawaabtaa, maaragtay aad kalsooni aad muujidaa. weliba credentialska meesha kuugu qoran iyo shahaadooyinkan iyo waxaan kuugu qoran haddiiba already lagu soo qanco resume-gii lagu qancay, janiskaagu waa sareeya. marka waa inaad on time ku timaadaa, folderkaaga sidata aho haddii keen lagu yirahdo aad keentaa. waa sidaas, labadaas waa inaad meelood iska dhistaa marka ugu horeyda. laakiin resume-ga maaragta ugu daran waxyaalaha shaqooyinka inta badan maaragta lagu waayo CV-gaaga hadduusan hagaagsanayn, kambanigu kuma soo wacaayo. maantana kaba sii daran AI-gaasaa soo baxda, application tracking system kaasaa la gelinayaa, bini aadan ba adoon aragaa lagu soo diidaya.
marka sheeko yar idinkaga sheekeynayaa 2023 mar raba inaan kambaniga magaciisa sheego. Kambanigan la shaqayhayay oo part time aan uga shaqaynayay. Kambanigaas waxaan ka mid ahaa ii sheeg dad marka ay shaqaale ay hire garaysanayaan dadkii oo interviewgaas qaadayaan ka mid ahaa. laba qof oo qofna uu HR yahay qofna uu aniga ahaa qofkaas waraysayda markii rasmeygiisa maaragtay la keenay 2 maalmood oo kala duwanayna kala waraysanayeen. hadday labada qof isku raacaan inuu qofkan uusan qualify shaqadan u ahayn qofkan inuusan shaqada qualify u ahayn hadday isku raacaan 2 maalmood oo kala duwan ayagoon is arag labadii qof ayna kala waraysanayaan qofkaas wuu iska baxaa. hadday isku raaci waayaan oo qof ka mid ahuna uu yidhaah yes qofkan qualify u yahay qofna uu yidhaahdo qualify uma ahana waxa waaye qof manager aha la kulmaayo oo dadka managerada xaruntaas ka mid aha qofka interview ka qaadaya mar saddexaad laga qaadaya. marka waxaan idinkaga sheekeynayaa marka qof dadkii anigu aan ka qaadayo qof ka mid ah aan diiday qofkii kale HR ka ahana uu igu raacay. marka sababtii aan ku diidan idin sheegayo. qofkii marka uu yimid qof dhalinyaro ah uu ahaa college ka soo baxay uu ahaa. markii uu yimid 15 daqiiqo aan sugayo anigu meeshii aan sugayo uga soo hormaro hadba waa fiirinaya inuu yimid iyo in kale. qolkii interviewga looga qaadayo qofka receptionku waa isku dhegan yihiin hadba waan fiirinayay. waa soo daahay qofkii. markuu soo daahay markaan salaamo oo soo dhawow iriyo soo fariisiyey macnaha waxaan fiirinaya qofku inuu fahamsan yahay inuu soo daaho timeka iyo punctuality-gu ay u qaymaysan tahay. markaas qofku soo daahay oo uu maaragtay apologize ka bixiyo sorry uu yidhahdo ama baakinkii ama traffic-an soo gala wax la yaqaan maba dhihin qofka interviewgiisii iska sii watay uma arkin 15 daqiiqo inay maaragtay caqabad iyo ay tahay uu qofkan soo daahay uusan timeka ilaalayn umuusan arkin. nowdan meesha ku qorta punctuality-ga inuusan qofkan uusan ku fiicnayn. midii labaad waxay ahayd waxaan idhi can I see your resume-gaaga ma arki karaa folder iyo waxa ma sidan already anigu resume-gii meel ii taala waa arkay laakiin marka qofkii wuxuu igu jawaabay waan idin soo diray resume-gii application-ka company-gu ku jira yes we know waa noo soo dirtay laakiin haddii lagu weydiiyo keen lagu yiraahdo ka waran iyadoo hard copy ayadana meelaan ku qortay unpreparedness inuusan qofkaas uusan qof diyaarsan ahaynoo uusan si fiican uusan maaragtay uusan u diyaarsanayn iyadana meelaan ku qortay. marka waxyaalihii anigu aan ku diiday interviewgu waa sii socda laakiin waxyaalihii aan ku diiday inuusan qof wax soo akhriyay ahayn company-ga xataa su-aalihiisa ku saabsanaan sidii si ka ag dhow laakiin waxyaalahaas aan ahayn qofkii iga dambeeyana waxa waaye 3 maalmood kadib galabtii dambe uu ku diiday. saasaa managerkii haddana ku soo aaday sidaasuu qofkii shaqadii ku waayay. marka waa ujeedaa inuusan qofkan uusan xoogaa credentialskii oo dhanna waa lahaa qofkaas credentialskii looga baahnaa college degree laga raba wixii dhan wuu lahaa experience-gii xataa wuu lahaa laakiin macnaha sidaasaa kambaniyadu u arkay. marka waa xusuustaa ilaa hadda qofkaas qofkii koobaad ma uusan ahayn laakiin qofkii wuxuu ahaa aan ka xusuusto 3 qof oo interviewga qaadaba isku raacdoon wada ridnay u ahaa. marka waxaan idinla wadaagayaa macnaha experience-gigaas maaragtay inaad xoogaa at least inaad wax ka faa'iidiin oo maaragtay ogaatiin in waxyaalahaas ay jiraan. markii interview lagu ballamiyo on time ku ima waqti hore oo 30 minutes ka horena ha iska imaano meesha ha iska soo fadhino yaan lagugu arkin waqti dhow maaragtay oo 10 daqiiqo iyo inaad 15 daqiiqo soo hormartaa waa caadi. haddii ay lacala kugu dhacdo soo daahdo oo wax kaa maaragtay emergency wax kugu dhacaan markaad timaado apologize gareeyo I'm so sorry inaan soo daaho waxaas iyo waxaas ay ku dhacay human being aan nahay oo anagoo dhan maaragtay wax kastaa nagu dhici kara waa la ogyahay. company-ga research ka soo sameeyo soo ogow shahaadadaadu maaragtay folderka iyo maaragtay resume-ga waxa kuugu jiraan keen haddii lagu yiraahdo waa la soo baxay iyadoo waliba pen iyo ama clips wax iskula dhagan yihiin u dhiiba waa tanaad leedahay oo maaragtay aad u diyaarsan. marka resume-ga iska hagaaji interviewgana maaragtay iska dhiso on time-na ku imow si fiicanna ula communicate garee company-gana wax ka soo ogow haddaan soo gaabiyo. marka videoga halkaasaan kusoo gabagabeynayaa aad mahadsantihiin. videodii caafimaadkan xoogaa bareegan kasoo qaadanay maalmahan. videogii hadda kan ka horreeyan soo duubo wuxuu ku saabsanaa waxbarashada iyo sida loo doorto jaamacadaha iyo programka aad ka dooranayso uu ahaa maadaama hadda August ama September jaamacadihii lagu laabayo college-yadii oo arday badan oo dugsi sare ka qalin jabiyay aadaydo criteria-da lagu doorto. waxaan uga hadlaa 3 shay hadduu 3daas shay uu soo buuxiyo barnaamijka aad rabto inaad qaadato
waa barnaamij fiican oo u habboon oo aad u wanaagsan u noqonaya. Marka videogan kii ka horreeyay uu ahaa, waa daawo kartiin isagana. aad iyo aad u mahadsantihiin feedback iyo commentiga aad ka bixideen iyo saa soo share gareydeen videogaas laftii. Asalaamu calaykum.